saaxiibkii cabdikariin deegaan baana laga soo wada doortay nasiib wanaag wuxuu noqday isagu maayarka oo saxiixii buu hayaa ka siciid cudayhaan anigu cid baan ku matalaa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxaanan doonayay oo aan kalfadhiga u dalbanayay in aan ka wareysto wax deegaankayga khuseeya ilaafa oo golaha deegaanka ka taagan oo la isku hayaa oo aan imika idiin sheegay oo ku saabsan kursi ka qaadid iyo kursi ka qaadid la'aan meeshan ma taalo الرحمن الرحيم warbaahinta waan salaamayaa waana mahadsantihiin horta aad baan uga xumahay bulshada reer Soomaaliland inay qalad fahanto wax khilaafa oo golaha deegaanka ka taagan oo la isku hayaa oo aan imika idiin sheegay oo ku saabsan kursi ka qaadid iyo kursi ka qaadid la'aan meeshan ma taalo waxa laga wada hadlayaa in qof waliba wuxuu ka soo jeedaa constituency meel baa soo dooratay aniga meel baa la iga soo doortay aniga saaxiibkii cabdikariin deegaan baana laga soo wada doortay nasiib wanaag wuxuu noqday isagu maayarka oo saxiixii buu hayaa ka siciid cudayhaan anigu cid baan ku matalaa golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxaanan doonayay oo aan kalfadhiga u dalbanayay in aan ka wareysto wax deegaankayga khuseeya arrintaasoo dadku ay si kale u qaateen boqol jeer baan ka hadlay warbaahinta waan u sheegay arrintan waxay ahayd arrin xafiis arrinta xafiiska ayaa waxay gaadhay heer in kursi ka qaadid iyo waxa arrintu meesha taala maaha arrinta meesha taala waxa weeyaan in la sameeyo kalfadhi caadiya kalfadhigii caadiga markuu muddo dhaafay ayuun baa la dalbaday kalfadhi aan caadi ahayn arrintaas ayuun baa keentay anigu ka siciid cudayhaan waxaan doonayaa inaan ka hadlo kaliya wadadii labada boqol ahayd ee ka soo baxaysay halaya ee koonfurta Hargeysa maraysay inaan maayarkayga ka wareysto halka ay marayso xaqna waan u leeyahay waxaan kale oo aan doonayay maayarka inaan ka wareysto wadada airportka waayo labada mashruuc waa laba mashruuc oo deegaanka koonfurta marayay oo loo baahnaa in sidii loogu talagalay uu maro waayo wadadii airportka iyo wadada labada boqol ee koonfurta Hargeysa maraysa oo aan golaha deegaanka ku gorgortami karin waayo in wadada paypass ka isku xidhaa in dhinaca wajaale ee marta waqooyiga magaalada Hargeysa wax hadal kama dhicin maxaa hadal keenaya wadada halaya ka soo baxda ee koonfurta Hargeysa maraysa qodobka labaad aan doonayna ka hadlo wadada gol waraabe isku xidha maxamed mooge iyo airportka wadada qodobka saddexaadna waxa weeyaan anigu siciid cudayhaan deegaan baan ka soo jeedaa waxa aan doonayay saamigan ku lahaa dawladda hoose in ay helaan arrinta kaliya meesha taala waxay ahayd isla xisaabta golaha deegaanka